subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa axad bisha abril waa 15 sanadka 2018 idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan. shirka waxaa looga hadlayay arrimaha islaamka guud ahaan, dhibaatooyinka jira iyo ka hortagga argagixisada oo kusoo gambatay magaca diinta islaamka si loogu sheego ummadda diinteenna wanaagsan oo xaqa ah inay nabad tahay oo aysan ahayn dil iyo dagaalamis ee ay tahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo. kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo ka warramaya shir caalami ah oo ay kasoo qayb galeen culimmada ahlusunna waljamaaca ee qaar ka mida dalalka islaamka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho. waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan dalka sacuudiga oo maanta uu ka furmayo shir madaxeedka carabta ka oo waxyaabaha looga hadlayo ay ka midka tahay xaaladda waddanka siiriya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horse waxaad kusoo dhawataan dhegaystayaal warkii dunida. isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa fariin culus u diray dimashik iyo taageerayaasheeda kuwaas oo ka gudbay nidaamka difaaca cirka ee dalka siiriya islamarkaasina burburiyey lafdhabaradii xarunta hubka kiimikada ee dalka siiriya. maraykanka, faransiiska iyo ingiriiska ayaa weeraro ku qaaday subaxii sabtida waddankaasi kuwaasoo 105 gantaal ku riday xarumaha hubka kiimikada ee siiriya, waxaana la sheegay in halkaasi meesha la weeraray ay ka midka ahayd mid ku taalla caasimadda dimashik halka laba kalena ay ku yaalaan meel u dhow xoms oo ah xadka dalka libnaan uu la wadaago dhinaca waqooyiga ee waddankaasi siiriya. saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in baaris horudhaca ay muujinayso in gantaal kasta uu ku dhacay bartilmaameedkiisa islamarkaasina laga fogaaday waxyeelo soo gaarto dadka rayidka. wasaaradda arrimaha dibadda siiriya ayaa sheegtay sabtidii inay cambaaraynayaan weerarkaasi oo ay ku tilmaameen gardarro cad, waxaana sidoo kale ay ku sheegeen in weerarkaasi ay geysteen maraykanka, ingiriiska iyo faransiiska uu yahay mid xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah. ruushka ayaa sidoo kale howlgalkaasi maraykanka hogaaminayay ku tilmaamay mid fashil ku dhammaaday, waxaana moscow ay sheegtay in inta badan gantaalada lasoo tuuray ay ka hortageen nidaamka difaaca gantaalada ee dowladda siiriya. kooxda mayalka adag ee islaamik jihaad ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in 4 ka mid a xubnaha kooxdaasi ay ku dhinteen qarax sabtidii si kadisa halkaasi uga dhacay. qaraxan ayaa ka dhacay xadka u dhexeeya khaza iyo israa'iil. wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in qaraxani uu ahaa mid haleelay mid ka mid a gawaarida qaada rakaabka oo qayb ka ahaa ama ka qayb qaadanayay dibadbax ay falastiiniyiintu diyaarinayeen. kooxda islaamik jihaad ma aanay bixin faahfaahin intaasi dhaafsan oo ku saabsan dhacdadan iyo qaabka qaraxani uu dhacay. subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo 2 maalin socday. shirkan oo ay kasoo qayb galeen culimaa diinka ahlusunna waljamaaca ee qaar ka mida dalalka islaamka. shirkan ayaa looga hadlay ka hortegidda arrimaha xagjirnimada. shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho. jamaal axmed cismaan wariyaha v o eda ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha jaamacaddaasi khaliif cabdulqaadir macalin nuur. shirkan waa shir islaamka ay qabsan jireen culamada suufiyada islaamka oo lagu qaban jiray dibadda. waa shirkii 7aad oo culamada suufiyada caalamiga ay qabato dhowrkii sano oo mar la qabto. muddo badanaan ka qayb geli jiray oon jeclaa inaan soomaaliya keeno oo lagu qabto shirka. shirkii ugu dambeeyey dibadda lagu qabtaa lagu guulaystay intaas oo alla aqbalay martiqaadkeeni alxamdulilah. shirkani wuxuu ka dhacay 12 bisha iyo 13 magaalada muqdisho caasimada soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay 13 dal oo dowladaha islaamka ka mid ah. waxaana martigeliyay shirka jaamacadda imaamu shaafici. waa yahay, waxaad noo sheegtaa 13 wadan culimmada ka socotay waa wadamadee ka mid ah? waxaa ka mid a masar, suudaan, urdun, lubnaan, suuriya, turkiga, ciraaq iyo dowladaha waqooyiga africa ku yaala oo morocco, tunis, algeria. galbeedka africa waxaa ka yimid senegal, nigeria, waa laga yimid UK. alxamdulilah dowlado badan oo yimideen jabuuti iyo walaalaha aan nahayna way joogtay. marka shirkan ujeedkiisu muxuu ahaa? shirka waxaa looga hadlayay arrimaha islaamka guud ahaan, dhibaatooyinka jira iyo ka hortagga
argagixisada oo kusoo gambatay magaca diinta islaamka si loogu sheego ummadda diinteena wanaagsan oo xaqa ah inay nabad tahay oo aysan ahayn dil iyo dagaalamis ee ay tahay nabad iyo horumar iyo barwaaqo. waxaa ay soo bandhigeen culamadii shir ka soo qayb gashay arrintaas wax ku saabsan dood cilmiyeeda laga galay maalintii hore shirka marka la furay. maalintii labaadna waxaa laga soo saaray bayaan lagu cadaynayo inuu islaamka yahay nabadgelyo, dadkana loogu waco si xigmad leh inay diintooda ugu dhaqmaan. ummadda soomaaliyeed oo 100% muslimka ahna waxay caddeeyeen kasoo qaybgalayaashii in oo ay yihiin ummad taariikh ku leh diinta islaamka, ilaahay ku manadeystay waxyaaba dawladaha kale islaamka ay haysanin, hal aan laga helaynin. alxamdulilah 100% muslim ay yihiin, 100% shaafici ay yihiin, caqiidadooda ahlusunna waljamaaca ay tahay. dowladda soomaaliyeedna lagu ayidayay horumarka ay ka samaysay nabadgelyada looguna duceeyey. waxaa jirtay in ururka al-shabaab oo tusaale ahaan dagaal kula jira dowladda marar badanna dariiqada ahlusunna waljamaaca ee suufiyada ay dagaalameen meelo ka mid a gudaha soomaaliya. sidee baa mu'asasadan jaamacadda imaamu shaafici ay ugu suura gashay iyadoo xiisadaasi ay jirto kala fikir duwanaanshaha si uu jiro inay shir isugu yimaadaan meelo kala gedisan oo magaalada muqdisho marar badanna ay weeraro kooxdaasi ka geystay ay ka dhaceen aad ku qabataan shir noocan oo kalea? alxamdulilah ilahi uga mahadinaynaa horta in ayadan waxba dhicin xataa ayan maqlin inay wax qarax dhaca iska day xabad aysan maqlin ay magaalada ka laabtaan ayagoo 4 casho joogay. runtii qabanqaabo weynaa loo galay, dowladana qayb ay ka qaadatay, ciidamada nabadgelyadana way ka shaqeeyeen, maamulka gobolka banaadirna waa nagala shaqeeyey si wanaagsan oo ilaa dowladeeda yaa maaragtay ammaanka looga qayb qaatay. marka iyagana waaba kusoo talagaleeno waxay yidhahdeen dacwada aan ka gudanayna annaga haddii meeshaas tagowgeeda loo baahday waa tegaynaa, walaalaheena waxay ku dhacaan qabnaa annaga. tan ku saabsan shabaabka hadda marnaba naxariis ma jirin shabaabka xaggiisa. meel walba oo soomaalida ay joogto, kuwa dhulka xaaqaya waa qarxinayeen, kuwa iskuullada ku jira waa qarxinayeen, waxay dhaafayaan ma jirin. annagana kolley waa ku talagalnay insha allahu tacala, ilaahayna waa nagu guuleeyey, waana ku cambaaraynay ficilada xunxun ay shabaab sameeyaan ummadda soomaaliyeed. bayaankii aan soo saarna qodob ka midan wuxuu ahaa waxaan cambaaraynaynaa shabaab ficilada ay wadaan iyo siday u dhaqmayaan. haddii aad maqashayna xalay cashaa waxaa noo sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir, culamada soomaaliyeed oo midaysanana kasoo wada qayb gashay. marsidii timid casho sharaf u sameeyey duqa, laakiin culamada soomaaliyeed oo ama mujamaca ah ama hay-adda culamada ah ama hay-adihii kale ah kulli waa la wacay oo xataa kelmadoodii meesha ka jeediyeen. marka ummadii soomaaliyeed culamadeeda oo ku midaysan yaa shabaab wada cambaareeyey, dadkana uga digay alxamdulilah. ugu dambeyntii waxaad sharaxaad inaga siisaa jaamacadda imaamu shaafici aad adigu guddoomiyaha ka tahay oo usha ay qabato ka sokow isugu yeeridda culimmada sidan oo kale inay shirar noocan oo kale oo laga hadlayo arrimaha diinta ay qabtaan, maxaa kaloo aad qabataan? jaamacadda imaam shaafici jaamacad aasaastay muasasada macalim nuur ka kooban 6 kuliyadood. markii la furayo waxaa lagu furay in oo diinta islaamka dadka si fiican loo fahamsiiyo oo wadada saxdaa la marsiiyo. macalimiin aan ka keennay azhar shariif oo masaare u badnaa yaa macalimiin ka noqoto jaamacadda wax ka dhigaysay. tani markii la aasaasayna waxay ku jirtay ufasirista ummadda islaameed in diintu nabad tahay oo laga hortago argagixisanimada iyo kuwa diinta sida xun u fasiraya. marka jaamacado badan oo dibadda oo adduunyada islaamka jooga sida masar iyo suudaan iyo turkiga iyo urdun iyo xiriir la leedahay wada shaqayn waa lagu guulaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin. magacaas iyo ixtiraamkaas ka yeelata dartiis dadkii la martiqaadayay waxay ogolaadeen martiqaadkii jaamacadda alxamdulilah. hadafka jaamacadda loo asaasay iyo ujeedadeedana waxay ahayd in taas la gaaro, diinta islaamka inay ahaato diintii nabiga lagu soo dejiyey sallallahu alayhi wasallam oo waxba lagu darin waxbana laga reebin. waana lagu guulaystay, waana ku caan baxday alxamdulilah. wayna ka qayb gashaa shirarka dibadda lagu qabanayo, haddana shirar kuwaas kasii duwan oo kasii maaragtay xoog badan oo arrimaha looga doodayo islaamkana insha allah mar dhow waa ka dhici doonaan muqdisho haddana hadii ilaah. aada iyo mahadsankaasi waxau ahaa guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici magaalada muqdisho khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo waramayey wariyaha v o eda jamaal axmed ismaal. halkaad kala socoteenna waa v o a washington. subax wanaagsan dhegaystayaal. 100 qoys oo ka mid a dadka ku dhaqan hareeraha webiga Tana River ee waddanka Kenya ayaa ka barakacay fatahaadda webiga iyo roobab ka da'ay dhulkaas. dadweynahan ayaa u barakacay magaalada Gaarisa iyo agagaareeda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire. dhibicda huganka iyo weliba daadadka culus ee roobabkan mahiigaanka ay wataan ayaa isbuucyadii la soo dhaafay guud ahaan xanibay
dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo nolosha kumanaan Soomaaliya gobolkani ku dhaqan. boqolaal qoys oo isaga soo barakacay webiga Tana River jiidiisa ayaa magaalada tani Gaarisa soo qabanaya gudaheeda. culayskii ugu badnaana waxa uu ka haystaa dadkaasi guryahoodii oo daadka uu qaaday. dhibaan qabna meel webi aan ka imaanay dhibka aan qabno cunto ma haysano meel webi aan ka ararnay meel qoxotaan soo degnay dhibaan qabna waxa noo saacidaan wayne ilmihii kana aan noo bogte roobaa nagu daci hasa dhiba weyn aan qabno waxaan rabtaa dawladda inay na saacidayso. meelaan siiwaani aan ka soo qaxna biyahana maalintii aan soo qaxnay iyo intaan dhaxdo hadda wax reer arno qumana noo imaadeen waa reer cross meelaan iskagu heynaa sandarwana ma haysano ninka 10 cunug qaba halka buushka uu iska dhax jiifaa asagii caruurta dawlad hore 2 qol 3 qol lagu jiray. dawladda dhexe iyo dawladda Garissa County oo iskaashanaya ayaa dadaalo kala duwan ka wada duleedyada halkay dadkani ku soo barakacayaan halkaasoo qaarkoodna teendooyin lagu siiyay balse dawladdu ayaa uga digaysa dadka webiga Tana River jiidiisa dhaco inay isaga soo baxaan ayagoo ku sheegeen in webiga kor u sii kacaya marba marka ka sii dambayso roobka iminka la filayana ay yihiin kuwa ka sii cuslaan doona kuwa iminka ka horay. watu watoke penye mito inapita wakuje tu upande wa juu they will be safer because haisi dadku inay isaga soo baxaan halka webiga uu ka dhow yahay waa inay kor u soo baxaan oo ay imaadaan meelaha ay ku badbaadi karaan. iminka deegaanka Burra gaar ahaan deegaanka Masambubu guryo kor u dhaafay ilaa iyo 25 ayaa daadku u qaaday daadkuna waa uu sii socdaa roobku waxay da'ayaan ilaa iyo 10 saacadood haddii sidan tooska ay u socotana waxaana lagu wargeliyay inay halaagi karaan marka dadku inay kor uga soo baxaan goobaha roobku ka dhow yahay. tunajaribu kala namna tunalais na public works idara sote hata kama ni jeshi hata kama ni nani tuone ili tupelekee watu chakula wakati wa shida. dawladdu waxay isticmaali doontaa wado walba oo dadka go'doonka ku jiro gaadiidka dawladda loo isticmaali lahaa oo gargaar lagu gaarsiin lahaa laakiin waxaan dadku ku wargelinaynaa inay kor u soo baxaan si uga nabad galaan roobkan iminka daadadka wataan. deegaano kala duwan oo roobkaasi ay ka horeen ayaa dawladdu waxay ku sheegtay in barakac fara badan uu ka jiro guryo fara badanna halkaasi ay ku burbureen ayadoo soo qaadatay deegaanka Gurufa Masambubu Burra deegaanada inta badan ee dhulka howdka ku yaala la gaari karin. dawladdu waxay sheegtay in loo isticmaali doono gawaarida militariga in dadkaasi looga soo badbaadiyo. roobkaasi xaalad adag kaliya ma aysan gelin kumanaanka jiida webiga Tana River degane sidoo kale Soomaalida qaxootiga ku xariyaha qaxootiga Dadaab ayaa qaarkood waxay fadhiyaan dhul banaana halkaasoo roobku ay yihiin halkaasoo daris ay la noqdeen roobka mihigaanka har iyo habeen ka horeeyo xariyahaasi qaxootiga Dadaab. war nuska haysan male qaxooti ani ilmahay gurugniin ku dunsinye meel seehedaana male sila isahariir waa una taqabn ilaahay uu midhaana mar jeengada maqabna gurigi baalee in haysan noo dumooye may weesana ahsaanin gala noo aabiya inaysan ani imaysaar kor saarane family weyn waan nahay agoonna way noo joogtaa gurigi halkaas guriga ku yaala kuwan kulli kuwa oo baxayna way ka dhamaadeen kanada waa la sheedaa dhaxdiisana biyo si la yeelo malaha 15 ruux aan nahay hal guri aan ku hooyan haynaa intaas dib un baa noo geeyay mar oo kale guriga dhexdiisa biyaha buuxsamay badeel qaado inta bacaad ku jib koroos ka deeyaya kaas oo hoos soo galay reebitaankiis waxba ma taray kaas hoos hadaad reebto kan kuraaba kugu deeyay hadana buuxsamay meeshii. guud ahaan gobolkani roobka ka curtay saameyn culus ayaa waxay ku yeesheen nolosha kumanaan qoys oo inta badan aanan ahayn kuwa awoodi kara inay ka barakacaan goobaha ay degan yihiin. beeraha waaweyn ee ku teesan webiga Tana River iyo webiga Dawa ayaa qarka u saaran in daadadku ay qaadaan halka Gaarissana dadkii beerahaasi raacanayay isaga soo baxeen. Maxamed Faarax Shire VOA Garissa. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomali.com. bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA. waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha. haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa shalay soo gabagabaysay shirar kala duwan oo lagu soo bandhigayay sharciyada cusub ee loo dejiyay ganacsiga iyo maalgelinta, iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda jabuuti ay soo afjareen shirarkii u dambeeyey ee la xidhiidhay soo bandhigidda sharciyadaasi cusub. agaasimaha guud ee wakaaladda jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan kobcinta maalgelinta mahdi dharaar obsiye ayaa arrintaasi waxa uga hormay wariyaha v o eda ramadaan muuse. 2 shir baan ahayd, mid ka dhacay guriga ummadda iyo milayga ka dhacay hoteelka Sheraton. kani hore isagu waxaa agaasimayey oo hormuudka ahaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Ilyas Muuse Dawaale, oo shirkaas wuxuu ku saabsanaa sidii hay-adaha dowladda looga wargelin lahaa, loogana la tashan lahaa dib u habeynadii sanadkan la sameeyey si loo sii fudaydiyo arrimaha la xidhiidha ganacsiga iyo maalgashiga. shirka kale labaad ee isagu Sheraton ka dhacayna wuxuu ahaa isagu ku saabsan sidii loo sharxi lahaa agab IT ah ama computer ah oo hadda too ku shaqeynayo tribunaalka ama maxkamadda Jabuuti ku shaqeynayso, si hadda too looga nasto waqtiyadii badnaa ee lumayay amba looga nasto faylkayga dib loo dhigay, faylka la hormariyay, wax cilmiyeysan baa meeshii la dhigay oo taariikhdii iyo saacaddii la dhigay soo saaraya. dabeetana kolba halka uu socdo ciddii ay khusaysay ay koont yeelanayso ay la socon doonto. kaabaa loo sharxayay wiisiyada iyo qaranyaasha dadkii shaqayaqaankii arrintaa khusaysay ayuu tribunaalku ka lahaa iyo mas-uuliyiintii maxkamaddu. arrintaana waxaa shirkaan galwadeensaha ka ah wasiirka cadaaladda ayaa u macnaynayay oo lahaa haddata Jabuuti tallaabadaabay qaaday in wax warqado aba hadda lagu daalin amba waqtigu dadka ka dhicin oo wax walba noqdo nidaamka computerka. waatan dee hay-adna iman doontay in Jabuuti World Bank isagoo qiimeyn doona shuruucda iyo xeerasha Jabuuti u yaala xagga maalgashiga iyo qawaaniinta kala duwan ee dalku ku shaqeeyo dhinaca ganacsiga. waxa la moodaa in wax laga ordayo arrintaas oo kale maxaa lagu macnayn karaa? kulley hawsha ballaaran ay dowladdu ay wado dib u habaynta jawiga saan soo sheegay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashigu ku qotoban kaliya ma aha qiimeyn cid lagu samaynayso, laakiin waa ku hadafkiisa kooban uu yahay sidii waddankani uu sidii ugu fudud ugu maaragtaan adeeg hufan ugu heli lahaa ganacsiga iyo maalgashigu weeyaan. haddii laisku heli karayna de maxaa noo diidaya inaan makaano weyn dowladda Jabuuti ay ka gasho qiimeynta nidaamyada caalamigu ay leeyihiin. laakiin hadafka asaasigii waxa weeye waddankani waa waddan madax bannaan, siduu uu wixiisa uu habeyn lahaa, uu fudaydin lahaa. qiimeynaha adduunyadana dee inta ka jawaabi karna de maxaa de noo diidide midho dhalkay arki karaan reer Jabuuti maxay tahay maanta la isodhan karo waa faa'iido u soo beertay reer Jabuuti. kulley dadaalkii ka hore la galay midho dhalintii uu sameeyey hal handaad ka taabto shirkadaha cadadkii shirkadaha sanadkiiba Jabuuti laga sameyn jiray uu laba laabmay oo halkii 350 ilaa 400 oo shirkadood sanadkii waddanka laga sameynayay waxaa sanadkii dhawata laga yeeyay waddanka 700 iyo ziyaado shirkadood. taas waa wax la taaban karayo. waxay inta badan ka cabtaan qoliyahan de shirkadaha abuura amba dadka doonada inay shirkad samaysan Jabuuti lacagaha ay siiyaan baananku ee wax ku samayn karaan. marka xeerashan cusub ee meel mareysaan iyo hawlahan aad ku jirtaan maxay ka tarayaan arrimaha caynkaas? waa su'aal xasaasi ah taabatay oo lafdhabar u ah dhaqdhaqaaqa dhaqaale taana oo ciriiriyo yaa jiray saad sheegtay. maanta dowladdu arrimaha ay xoog u lafagurtay oo ay dib u habeynta ugu qoto dheer uguna gun weyna ku samaysa waa taa aad carab ku dhifatay. waxaana insha allahu tacaala naawilaynaa haddeeto inay shirkaduhu halka ay ka nafisaan ciriiriga oo ay maalgelin fudud oo tayale ay ka helaan bangiyada. marka dib u habeynta ugu ballaaranba kaasay ku qotantay walaal. kaasi waxa uu agaasimaha wakaaladda kobcinta maalgelinta jamhuuriyadda Jabuuti Mahdi Dharaar Obsiye oo u warmiyay wariyaha v o eda ramadaan muuse. halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a waddanka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedka dalalka carabta kaasoo looga hadli doono arrimo dhowr ah oo dalalka carabta ku saabsan waxaana si gaara diiradda loo saari doona xaaladda dalka syriya warbixintan waxaa ka soo diray magaalada qaahira wariyaha v o a xuseen saxnuuni hogaamiyaal kala duwan oo ka socda dalalka carabta ayaa saacadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay dalka sacuudi arabiya si ay uga qayb galaan shir madaxeedka dowladaha carabta oo maanta ka furmaya magaalada tahraan ee dalkaasi madaxda ilaa iyo hadda gaaray dalka sacuudi arabiya waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka masar suudaan soomaaliya tunisiya ciraaq iyo amiiro ka socda qaar ka mid ah dalalka khaliijka madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka mid ah hogaamiyaasha hadalka ka jeedinaya shirkaasi ayaa lagu wadaa in khudbadiisa diiradda uu ku saaro horumarka iyo caqabadaha horyaala dalka soomaaliya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ururka jaamacadda carabta shirkani ayaa lagu gorfeynayaa ajendayaal ay ka mid yihiin xiisadaha ka alowsan dalalka siiriya yemen libiya iyo qadiyadda dhulka falastiina wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya caadil al jubayri ayaa warfideenka u xaqiijiyey shir madaxeedka carabta inaan lagu soo qaadi doonin xiisadda u dhexaysa dowladda qatar iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta madaxda dowladda qatar ayaa ka qaybgelaya shirka carabta xilli xiisada dalalka khaliijka xal aan loo helin laakiin mas-uuliyiinta dowladda syriya ayaan ka qaybgelaynin shirkaasi kadib markii si kumeel gaar ah loo joojiyey xubinnimadeeda ururka carabta sannadii 2011 injineer maxamed cabdilaahi sanweyne oo degan dalka maraykanka islamarkaasina ka faalooda arrimaha carabta ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey arrimaha la filayo in lagu lafaguro shir madaxeedka carabta dhowr arrimood baa horta shirka sideedaba looga hadlayaa arrinta koowaad ee looga hadlayo waa arrimaha falastiin iyo israel soo cusboonaaday arrimaha syriya ka mid bay yihiin barnaamijka laga hadli doono waxaa kale oo ajendaha ku jira arrinta soomaaliya iyo maxay haydayeen imaaraat oo mar hadda ka horna loo qaaday ama loo wakiishay sacuudiga marka arrimo dhowr ah ayaa laga hadli doonaa shirka madaxweynuhu inuu khudbad ka jeedin doono maantayto ayaa iyadana ku jirta marka waxyaabaha ka hadli doona waxaa kamid ah sida la filay dadku dhammaantoodba horumarku waddanku sameeyey waxyaabihii lasoo qabtay xaaladaha siyaasadda meesha marayaan waxaa sidoo kale aan ka marnayn marnaba xaaladda isbedelaysa argagixisada ah ayadana ajendaha ku jirtana aad ayaa looga hadli doonaa gobolka iyo adduunkaba dhib badan ku haysa arrimaha kale oo iyagu laftirkoodu meesha ku jira oo bointiga ama labaad ama koowaadda la oran karo waa arrimaha yemanta wey taa laftirkeedu dhowr sawaariiqa iyo gantaale kasoo horadeen sacuudiga in kastoo qaar la qabtay waxaa xootiyiinta hawsha shaqo badan ku leh iiraanna way ku lug leedahay marka arrimahaasuna ajendaha ayay ku jiraan waxay hoos imaanayaan arrimaha argagixisada iyo waxaas marka dhowr arrimood oo qaabka u waxaysan bay ku jiraan dhinacyada kale waxay wararku sheegayaan in arrinta soomaaliya iyo imaaraat aysan ajendaha ku jiri doonin laakiin arrimaha shirarka goonigoonida ah amaba qaababka laisku arkay inay kamid noqon doonto waxaana loo xil saaray siday wararku sheegayaan ama ay soo baxbaxayaanba sacuudiga marka arrintaa in loo dhammayn doono qaab noocaasa ayay u eg tahay oo aada loo filaya xuseen waxaad muddaa shirkeeda ka duwan shirarkii hore maadaamay doqeyn cirka ay ka socoto xagga syriya arrimo badan ay ku shaqo leeyihiin marka waxaa laga filayaa inay kasoo baxaan qodobo ka waaweyn qodobadii hore kasoo bixi jiray shirarka carabta shirweynaha dowladaha carabta ee maanta ka furmaya boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ah kii 29aad waana shir madaxeedka dunida carabta oo sanadkiiba mar la qabto xeelerayaasha carabta ayaa rumaysan shirweynahani inuu kusoo beegmayo xilli xiisadaha dalalka syriya iyo yemen cirka ay isku sii shareereen iyo weliba xiriirka u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha carabta oo sii xumaanaya xuseen saxnuuni v o a qaahira aad buu mahadsan yahay saxnuun dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a markan sida aad maqlaysaan heestaas aad dhegiin hadda kusoo dhacaysa ee fanaanka